الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. درسنا وحكى بلابنا يا آيات بقول سجاشن يكو سورة الأعراف. waxay noo soo dhameeyay aayaadkii Allah kaga warramay subhanahu wa ta'ala bini aadanka markii Ilaahay nicmo uu siiyo ay kamid tahay awlaad saalix oo caafimaad qabta qaarkood inay Ilaahay cid kale wax ugu darayaan oo Ilaahay ay ugu shariig yeelayaan. Allah wuxuu yiri ayushrikuuna ma waxay Allah wax ugu darayaan ما شيء لا يخلق أن وحبا أن أبورين شيئا وحبنا أن أبورين والحالة هم إيجا كواس إله وحقو دريان أيهين يخلقون كوا إيجا الله أبوري أو الله أمي ولا يستطيعون ما أبوذي كران كوا إله كسكوا أي عابديان لهم كوا عابديه ومكران نصرا هيل ومكران إيين أقرقارون وحطران ولا أنفسهم حتى نففيالك وضع عد كلبة إسكداية ينصرون كوا أهيلين كرا نففيالك وضع وحتري كرا أو نفط وضع أقرقاري كرا أو وحكدعين كرا حتى معه. وإن تدعوهم هداد أيرتان إلى الهدى هنون هداد أيرتان لا يتبعوكم إذن راعي ميانو هنون كي وناقاد أيرتان إذن كن راعي ميان معناها كوا عابدية وحاس haddaad kuwaas hanuun ugu yeertaan oo aad isku daydaan iyaga inaad wax tartaan waxtarkii idinku raaci mayaan sawaa'un waxa isku mid ah calaykum korkiina adacawtumuhum inaad u yeedhaan oo aad baridaan oo aad la hadashaan amase antum idinku saamituun inaad ka aamustaan oo aydan waxba ku oran iyaga waa isugu mid maxaa yeelay waxba garan mayaan waxna maqli mayaan. إن الذين كوا تدعون عابديسان قالوا من دون الله الله كسكو عباد أضوموي أمثالكم أو إذنكو كلا وأضومو إذنك إذن لمده معناها سيدة إلهي إذن أبوري أو إلهي إذنكو أبورين أد إلهي عابدان يغنى سيدة سوكلا أيا إلهي أمي سبحانه وتعالى سيدة درادين أدون مع عابدي كره فادعوهم بل أيارا بل وعظ وقرقار ويديست فليستجيبوا هاجيبان لكم إذنك إن كنتم هداتهين صادقين كورنكو شيغية وحاس إنه إلهيهين أما إنه وحتري كران وركا هداكو شيغيسان بل أيارتا بل عرها إذن أجيبين ووركي إنها مغلين اللهم وحي إليهن أرجل لغهم إليهن كوا عاد إلهي كسكوا عابديسان يمشون أي كسعدان بها لغهاس أمس اللهم وحي إليه أيدين قعمهم إليهن يبطشون أي وحكو قبصدان بها قعمهاس معناها إذن كاود أعمال لوجيدا درتا يدقحانتا يوعد سميسون عاد عابديسان ووحان لهين حتى اللحادكي إذن كو عاد لهيدين ووحبا أنقبسان كريم أم لهم وحي إليهن أعين إندهم إليه يبصرون أي وحكو أركان بها إندهاس ومايا معناها اللغة واكم مغضان لكن كما الصعدان ومركا قاركود اللغة الصمينية قعما واكم مغضان لكن قعما وحكو قبسان كران معها وادقحان إندا واكم مغضان بعولاء وواحد مدى إنو كوجيدو مركا سنم كهوري استاكتد لكن كوا وحكو أركيان معه أم لهم وحي إليهن آذان مدقى إليهن يسمعون بها أي وحكو مقلان انت ووامايا waxa marka idinka wadhaamo way maxaa yeelay kuwiina caabudaya intaas ba idinka leh qul waxa tirada rasuulka ilaahayow ud'u bal wa'ada marka shurakaakum kuwaad ilaahay wax ugu tadeen bal u yeerta thumma dabadeedna kiiduni dhamaantiin idakra oo dhagar ii maleega iyo inaad dhibaato i gaarsiisaan فلا تنذروني هنا إيكاذننا هداد وحيالي كدان وحبنا معناها إما يالي كدان هداد كل جين اسكو تكتان إن وليي أنيقا هيلي هايقو قرقار هايقو الله هوي
alladii allihii ayaa aniga igu filan oo ii hiilinayo ii gargaaraya allihii nazala soo dejiyey alkitaaba kitaabka qur'aanka wa huwa allah yatawallaa isagaa tawalliya oo u gargaara oo u hiiliya الصاalixiin dadka suusuuban oo xaqa ilaahay iyo xaqa addoomaha ka soo baxa allah ayaa u hiiliya oo u gargaara waaladiina kuwa tadcuuna aada caabudaysaan min duunihi allah ka sokow mar kale laa yastatiicuuna ma kari karaan nasrakum hiilkiinna ma kari karaan dhibaato idin haysata idinkama hiilin karaan oo cidna idinkama dhicin karaan walaa anfusahum nafyaalkoodana yansuruun kuwa u hiilinaya oo xataa naftooda dhib ku socota kuwa wax ka qaban kara oo iyaguna ma hiishan karaan wain tadcuuhum haddaad ugu yeedhaan ila alhudaa hanuun haddaad ugu yeedhaan waxdani igu jidho haddaad ugu yeertaanoo khayr ah laa yasmacuu maqli mayaan warkiinna maba maqlayaanba wa taraahum waad arkaysaa yanduruuna iyagoo ku soo eegaya ilayka adiga xaggaaga markaa hor istaagtid indhaha kaaga muuqanaya sidii wax kuu jeeda oo kale oo dhagxaana walxaala hum iyagoo laa yubsiruun aan waxba arkayn aayaadkan guud ahaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo ku caddaynaya ilaahay ka suko wax kastoo la caabudo inaysan waxba ahayn dhinacyo badan ayaa ilaahayna ka tusinaya oo qofka caaqilka ahi uu wax ku fahmi karo wax kastoo ilaahay ka sokow la caabudaa inaanay cibaado mudnayn ugu horeyn ilaahay wuxuu inoo sheegay waxaas inaysan ahayn wax abuuray cid aan wax abuurinna cibaado ma mudna bal iyagaaba ilaahay abuuray subxaanahu wa tacaala allihii abuurayba marka cibaadada iska lehe waxa kan la abuuray iyagoo cibaado ma mudna aayadda kan ilaahay wuxuu inoo ku sheegay marka la caabudayo waxa kan ileen waxa loo caabudaya waxa ku tareen kuwa caabudayana ilaahay wuxuu yidhi wax ma tari karaanoo uma hiilin karaan xataa naftooda baysan u hiilin karin qof marka naftiisaba aan wax tari karin naf kale ninkii tiisaba daryeelaa tu kale ku dara waa tii la yidhi qof aan naftiisaba difaaci karin naf kale inuu waxu taro iyaduna ma dhici karo mar kale ilaahay wuxuu yidhi haddaad ugu yeedhaan hanuun haddaad ugu yeedhaan oo aad isku daydaan iyaga xataa wax wanaagsan inaad fadhaan oo aad la talisaan waa wax dhegala oo indhala oon caqli lahayno laa yattabicuukum hanuunkii idinku raaci mayaan waxaa isku mid ah inaad u yeedhaan oo aad la hadashaan iyo inaadan la hadlin oo aad ka aamustaan waa isugu mid maxaa yeele waa wax dhegala oo aan caqli lahayn oo indhala mar kale ilaahay wuxuu tusaalaynaya kuwa caabudayaaba inay dhaamaan kuwa ay caabudayaan maxaa yeelay luga ay ku socdaan ma leh waa dhagxaan gacmo ay wax ku qabsadaan ma leh indha ay wax ku arkaan ma leh dhega ay wax ku maqlaan ma leh marka waxaa la leeyahay war intaba idinku waad leedihiin see caqliga la idinka qaado waxaan socon karin oo aan gacmo lahayn oo aan wax arkayn oo aan wax maqlayn see u caabudaysa idinkoo maxaan kuri idinkuba intaas leh mar kale allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala haddaad markaas kadib ayaa ilaahay wuxuu inoo sheegaya aayaadka dambe haddaysan iyagu wax tarayn yaa wax taraya rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam ilaahay wuxuu u sheegay waxaad tidhaahdaa aniga hiiliyahayga wax iigu yaal oo ii gargaaraya allahu laakiin kuwa idinku caabudaysaan waxba idin tari maya allahna wahuwa yatawalla asaalixiin cidda camalkeeda hagaajisa oo xaqa ilaahay iyo xaqa addoomaha ka soo baxdana ilaahay isagaa ku filan subxaanahu wa tacaala arrimahooda isagaa tawaliyaya ee ilaahay keliya caabuda markaas ayaa ilaahay idiin hiilinaya mar kalaa lagu noqday oo ilaahay wuxuu yidhi kuwa aad caabudaysaan ilaahay ka sokow wax idinma tari karaa naftoodana wax ma tari karaa haddaad hanuun ugu yeedhaan idin maqli maya waxaad mooddaa inay kuu jeedaan markaa hortooda timaadid laakiin wax arkaya ma ah markii la yimid magaalada madiina oo diintii islaamku ay soo gaadhay ayaa waxaa dhacday laba saxaabi mucaad ibnu jabal iyo mucaad ibnu camar ibnu jamuux niman dhalinyaro ah bay ahaayeen si ay u tusiyaan nimankii mushrikiinta ah ee weli madiina joogay waxaan ilaahay ka soko ee caabudan inaysan waxba ahayn
ayay habeenkii waxay ku guurayn jireen asnaamtoodii markaasay wax burburin jireen wasakh marin jireen kuwa qoryaha intay soo burburiyaan bay dadka masaakiinta iyo araamish ay u keeni jireen si ay wax ugu karsadaan saasay dhowr habeen samayn jireen ayaantii dambe Mucaad ibn Camar ibn Jamuux aabihiis baa wuxuu lahaa sanam dhagax ah kiibay u tageen markaasay foororiyaan oo saxara iyo qurun mariya odayga subaxdii buu yimaadaa markaasuu yiraahdaa meesha inkaar baa ka dhacday wixii buu nadiifiyaa wixii buu udu ku shubaa waa istaajiyaa waa ka taga subaxdii dambe habeenkiiba uga damayaan mase waa sidii wixii sidii uu wasakh u leeyahay markaas marka la nadiifiyaa marka loo subka marka loo istaajiyaa wuxuu yiraahdaa marka qaar riwaayad qaar waxay leeyihiin seefku intuu u dhiibay agtiisa dhigo wuxuu leeyahay war waxa ku iimaanaya iska dhici intasir aarso waxa iska dhici habeenkii dambe waxay sameeyeen intay qurunkii mariyeen ayay baqtiya xarig ugu xireen markaasay god intay ku rideen bay ka laadlaadiyeen odayga subaxdii buu yimid mase wuxuu ilaahay ka soo caabudi jiray ilaahaysa ay baqtigiiba ku xiran yahay ceelna waa lagu rido waa lagu laadlaadiyay markaasuu fahmay wuxuu yiri ilaahay baan ku dhaartay wax kana haduu wax yahay waxa iska dhicin lah maalintaas oo ashahaatay oo diinta islaamka soo galay dadkii wuxuu kamid ahaa Uhud markii dambe ku shahiiday ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dama dhaafana u naxariisto marka aayaadkana waxa lagu tusinayaa in waxa ilaahay ka soo la caabudo aqli iyo cilmi iyo garaad midna inaan lagu caabudayne aqli xumo inay tahay ayushrikuuna ma waxay wax ugu darayaan Allah ما أصنام لا يخلق عن أبور شيئا وحبنا والحال هم إيجو كوا أي عابديان يخلقون كوا الله أبوري بأيهين ولا يستطيعون أمكر كران أما أودان لهم كوا عابدية نصرا هيل أما أودي كران ولا أنفسهم نفيال كودنا اسكبدا عيد كلاء ينصرون كوا هيشان كرا أو نفتوض الدفاع كرا أو هيلين كرا حتى معه وإن تدعوهم هداد ويرتان إلى الهدى هنونك هداد ويرتان لا يتبعوكم وحوانا أكسن هداد ويرتان إذن كن راعي ميان أو إذن أجيب ميان سواء وحا إسوق مده عليكم كركين أدعوتموهم إناد ويرتان أم أنتم صامتون أما إناد آمستان محايا لهدي الله لنا وحمغلي ميه هدي لغا آمستان وإسلا سيدي هذا الآن وإسوق مد تفسير كلي علماء قاركود قليان وحي يراهدين وحل الله هذا وادتك مؤمنين تاه والله وحي وإن تدعوهم كوا مشركين تهداد ويرتان إلى الهدى هنونك لا يتبعوكم إذن كن راعي ميان هاي الأصنام يقولون كاس أي قلب قول الدقي سواء وحا إسوق مد عليكم كركين أدعوتموهم إن الحق ويردان أم أنتم إذنكم صامتون إن إسكا آمستان وآدكا آمستان إن الذين كوا تدعون أدعاب ليس من دون الله الله كسكو عباد وأضومه أمثالكم إذنك إذن لمده وعقل علين كري كوا أدعاب ليس إلهي كسكو سيدا إذنك بإلهي معناها إذن أبوري أيا إيجا بإلهي وأبو سيدا إذنكو إلهي إذنكو أبورين إلهي أضومه النغطان أيا إيجا نساس إلهي وأبو مركا أدون معابد كرا ومايا عباد أمثالكم عد والباء إلهي كسكو لعابده أيها سوق ليس حتى أنبياء هدي لعابده محايا الأنبياء وأدومه كم إذا أدومها إله بل أدومها كوا وصر يوي درجة قف بين آدم وقارنه من وصر يسانا وحويه إلهي إنه قفك أقره إنه يه أدون إلهي أقعي ودرجة ذي أنبياء أي قارين ونبي الله محمد وقاري صلى الله عليه وسلم وقرآنك إلهي كو أماني تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين النذيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أما أنت أقوى إنه إلهي كو أماني نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام تاسا كميدة إنه يهي أدون إلهي وقعي وإلهي أدون أوه قف مركا أدون لما عابدي كان عبادة إلهي بأسكاله سبحانه وتعالى أكليه فادعوهم بل أويرت فليستجيبوا هيدن أجيبين لكم إذنك بل عر هيدن أجيبين واتحد بل أويرت ومركا الله هذا الشان هي وائد المغلي هيدن له إن كنتم هداتين صادقين كورونكو شيغيه
أي بأنهم آلهة إن إلهي يهين أما بأنهم يسمعونكم إن إذن مغليان أما إذن نفعيان هذا رنكو شيغيسان بل هيدن أجيبين مكاد لحظة شاء اللهم وحي إليهن أرجل لغهم إليه يمشون بها أي كسعدان أم لهم أيد مقعمي إليه يبطشون بها أي وحكو قبصدان أم لهم أعين ما إندي إليه يبصرون بها أي وحكو أركان أم لهم آذان مدقى إليه يسمعون بها أي وحكو مغلان انت وماله سيدا دراديد وروح إذن كابر دامابا محايل إذنكو انت بواد ليدي قل وحد تراد رسولك إلهي ادعوا إيارت مركا شركاءكم إلهي كسكوكو عابد إيسان إيو إذنكو بإسو يارتو إسو تغا ثم دبدايدنا كيدوني الدكر معناها دغر إي مليغا آد وحيقو يليسان فلا تنذروني هداد وحاودي كدانا هاي كاذننا معناها إذنك يا إسلامتين بدنا وحي ما يلي كره إلهي بانكو كالصوناهي إلهي كليا اللغي نفع إسكاله واقت إن وليا مركا واحتريه وقفك دفاعيه ولري نفع له الله ولي إن وليي أنيقا وليقي متك إيهيلنا يؤي قرقاريا الله ولي إنك نصاصا لينو بريا قفك مؤمنك إلهي با ولي سبحانه وتعالى إلهي با أهيلنا يؤي قرقاريا الذي أله نزل سودجي الكتاب كتاب القرآن وهو الله كوان محي سودجي محمد هيا وهو الله يتولى استغى توليه الصالحين دتك صوصوبا تننا وبشاره جود والنبي كليه إني سنجار كوا هين قرقارك إلهي وقرقاريه دتك مؤمنين تأه وصالحين تأه أي إلهي نكون بشارين قف كستو صالحة أرميس إلهي با تولينيه إلهي با أهيرينيه إلهي با إلالينيه والذين قوة تدعون أدبر يسان من دونه الله كسكو لا يستطيعون مكر كران نصركم هيلكين مكر كران ولا أنفسهم فيالكودنا معها ينصرون كوا هيلينيه نفتوضنا رحمة كران عيد كلا يسكداي وإن تدعوهم هداد ويرتان إلى الهدى هنون هداد ويرتان لا يسمعوا مغلميا وتراهم واد أركيسا ينظرون إيوك سوء إيجيه إليك أذيك حقاك إني يكون جيدان بعد مدة استورك واد أركتيو marka uu xoogaa roon yahay hadaad hadba dhinac ka marid waxa moodo adiga inuu ku jeedo kula wareegayo wax ku arkayna ma sawiro saaso kala away wal halahum iyagoo la yusiruun aan waxba arkay allah wuxuu yiri khud qaado rasuulki ilaahay al afwa dhaafitaanka qaado akhlaaq walba waxa ugu wanaagsan kamar oo ka qaado wa amur far dadkana bil urfi ay bil ma'rufi wax wanaagsan dadka far وأعرض هذه لبعض أي كاغت ماد مركا دتك وناغ فريسي أما حمانة أدريبيسي وأعرض يسجنس أو أصبر عن الجاهلين كوح مقرطة لبتك أغا إيمانيسا كجنس أو معناها أصبر وي وأتكيس وإما ينزغنك هدوك وسواسيه من الشيطان حقيس هدوك جوجيه ومعناها دنبي أوكو وحنباره نزغ وسواس شيطان حقي سكتمد هدي لغو وسواسيه فاستعذ بالله إلهي مغنقل إلهي شيطان كمغنقل إنه الله سميع الله مغل بدن ويه ووحك صول لغوها يحضل مغليه عليم الله قال بدن ويه وحك صول السميه الله سبحانه وتعالى وحي خذ العفو نبينا والله فري عليه الصلاة والسلام إننا أمر كاسي وإنوسو قدبية عفي قاضو دور تفسير أسوله دوبي علماء الجريان علماء غاركود وحي إلهذين نبي وحي إلهي فري عليه الصلاة والسلام بالعفو والصفح عن المشركين قال هذا إنه إسكع فيه أو أدل قاطه مركز وإنتي آيات جهادك أيسن سودي مركز وحا ليري من سيده ويري وقال غير واحد عن مجاهد سيده لغوري من اخلاق الناس بالو جيدا واعمالهم من غير تجسس ددك وحيالها اي كو قابليا اخلاقدودا iyo acmaashooda afi ka qaado macnaha waxa kaaga muuqda oo ugu fiican adigu ka raac ha oranin waxba u qarsoon hada tajassus ha ku sameyn qofku haduu wanaag ku sheego ka qaado
muslima run sheeg muslimana uga qaada meesha Soomaalidu tiraahdo way haduu afcaashiisa aad aragtid inta sida daahirka wuxuu wanaag ugu muuqanaya ka qaado marka tafaasiir dhowr isu dhow oo kulligood ku ururaya qofku inuu yahay qof wax walba waxa ugu wanaagsan ka raacay ha noqonin qof cuqdad badan dadka ka shakiya maxaan ku yiri dadka xasda wax walba waxa ugu wanaagsan ay dadka xaqooda ka mar oo macnaha kula dhaqan waxa iyadoo nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam xadiis riwaayaadkiisu ay badan yihiin laakiin macnihiisu isu tagayo sida xadiiskii nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam ee jibriilow maxaa loola jeedaa aayadda inna allaha amaraka an ta'fuwa amman dhalamaka saasa loola jeedaa ilaahay wuxuu ku faraya cidii ku dulmida inaad iska cafidid wa tu'di man haramak qofkii ku qadiyana adigu inaad wax siisid wa tasila man qata'aka qofkii ku gooyana adigu inaad xiriirisid guud ahaan matniga xadiisku waa saxiix laakiin riwaayaadka qaar kood sanadkooda in culimadu wax ka sheegaan waa dhici karta marka kadibna ilaahay wuxuu faray qofka marka aad dadka macnaha aad arintaadu ay tahay musaamaxa iyo iska dhaafitaan dadkii masaasa uga haraysa maye waa amr bil urfi ba ilaahay dadka waxa macruufka wanaaga afar mar hadii macruuf la isfarayana hadii munkarkana waa la iska reebay xumaantana dadkii ka reeb qofku haduu ka shaqeynayo alamru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar waxa ku iimaanaya dad badan oo dhibsanaya oo la dagaalamaya oo caayaya iyagana waa a'rid 'anil jaahiliin dadka jaahiliinta ah ka jeenso macnaha waxa uu sheegin ma aha qofka jaahilka ee waxa weeye dhibaatada kaaga iimaanaysa ku sabr weeye u dulqaado afi saasa loola jeedaa aayadan tafsiirkeeda culimadu badanaa waxay keenaan xadiiskii saxiix ahaa ee Hurr ibn Qays ninkaas saxaabiga ah ee jaliilka ahaa wuxuu ahaa nin qaari ah oo dadka waliba Umar uu dhaweeyo ayuu kamid ah oo dadka Quraanka yaqaan Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu waxay ahaayeen dadka majliskiisa iyo wasaaraddiisa fadhiya oo uu la tashado ayaanba waxa uu yimid nin adeerkiisa oo Uyayna ibn Hisn la oran jiray markaasuu wuxuu yiri adeero waxaan rabaa inaad iga idan qaadid ninkan amiirka ah oo Umar buu u jeeda inaan u tagaan rabaaye iga idan qaad Hurr ibn Qays wuxuu u tagay Sayyid Umar radiyallahu ta'ala anhu wuxuu yiri adeerkay baa jooga inuu ku soo galo raba ha soo galo ilaa goortu ka soo galay ayuu canaan u saaray Umar ibn al-Khattab waxba nama siisid wax badan nama siisid dhexdeeda cadaalad kuma xukuntid maagis baa amiirkii dabada u qabtay Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu waa uu carooday ilaa uu ku hamiyay baa la yiri inuu ninkii wax yeelo markaas ayaa waxa la hadlay wiilkii odaga adeerka oo ahaa oo wuxuu yiri Umarow ilaahay wuxuu yiri khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahili wa in hada min al jahili ayada soo qabtay ilaahay uu yiri afi qaado dadka jahili wanaaga far dadka wax magaratada ah isaga sabr ninkaana jaahiliintu kamid yahay adeerkay Umar aayada haduu maqlayba waa ku joogsaday markaas maxaa yeelay kaana waqafan li kitaabillah mar hadii aayad quraan loo sheego xagga iyo xagga midna uma dhaqaaqi jirin aayada kale ilaahay wuxuu inoo ku sheegayaa aayadaas ilaahay wuxuu inoo ku baray dadka xun waxaad la qaabilaysid waa u sabraysaa laakiin shaydaan haduu ku dhibo oo ku gujiyo oo ku waswaasiyo isaga see yeelaysa isaga inaad ilaahay ka magangashid mooyee hal kale ma leh a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa aayadani waxay la mid tahay aayaadkii suuratu fussilat waman ahsanu qawlan biman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم آيات هو على صعوت تنسي هو لما صعوت لما واسكمد معناها كل واحد كهذا ليان دعوذي مركاد وناقة فريس دو حمانة ريبيس dadkii hadii dhibaato kaaga timaado u sabr kii xumaanta kula qaabilay adigu wanaag la qaabil
waxaad arki doontaa isagooba kaannahu waliyun xamiim dadka midka kuugu jecel buu noqonaya ha oran ka aarso mar haddaad diin xambaarsantahay iyo wax wanaagsan dadkii wanaagga aad faris xumaantana aad reebaysid aqoon kaleba yaadan lahayn inta aad sheegaysid haddaad ku filan tahay wixii dhiboo kaaga yimaada bini aadam uu kugu keeno u sabr ha caroonin meeshuu xumaanta kula qaabilay adigu wanaag la qaabil waxaad arkaysaa isagoo kuu ah marka dambe xigta ku jecel arrintaasna ilaahay wuxuu yidhi wamaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu wamaa yulaqaaha ilaa duu xadin cadiim in qofku uu u sabro qofkii dhibaato ugu geystay ilaahay dartiis lalama kulan siiyo dadka sabra mooye ilaahay cid kale ma siiyo qof nasiib badan leh mooye qof kale dabeecaddaas ilaahay ma siiyo subxaanahu wa tacaala marka waa dabeecad aad u wanaagsan qofku inuu isbaro wixii ummadda anfacaya markaad ka shaqaynaysid wixii dhiboo kugu yimaada inaadan ka xanaaqin inaadan qofkaa ka aarsan inaad u saburtid ila ilaah deeta waa u socotaa khud qaado alcafwa cafis qaado culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen zakada markii qofka laga qaadayo inta maxaan ku idhaahdaay ama sadaqada inta qofka lagu leeyahay ama wixii qofka ka bixi kara oo ibnu kaiir oo kale wuxuu yidhi intaana aysan soo degdegin aayaadkii zakada macnaha zakada nisaabkeedii iyo qaybaheedii ilaa suuraddu waa makiye zakadana tafaasiisha waxay kusoo degtay madiine ah ayay ahayd qofku wuxuu awoodi karo ka qaad in lagu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waamur fardadka bilcurfi wanaagiina far waacrid ka jeenso markaas kadib can iljaahiliin kuwa wax magaratada ah wixii dhiboo kaaga yimaadana u sabur waimaa yanzaqannaka hadduu ku waswaasiyo nasqigu asal ahaan waa fasaadka qofku markuu ku dhibo wax fasaada uu kugu sameeyo hadduu ku gujiyo hadduu ku qodqodo min ashayطaani shaydaan xaggiisa nasqun gujin ama qodqodid ama waswaasin isagu xal kale ma laha fastacid billaah ilaahay magangal ilaahay ka magangal innahu allah samiicun allah maqal badan weeye caliimun oo ogaal badan ina aladiina kuwa ittaqow cabsaday idaa massahum marka uu taabto daa'ifun waswaas markuu taabto wax dembiya markuu qalbigooda ku soo dhaco waswaaskaasoo min ashayطaani shaydaan xaggiisa ka ahaado tadakkaruu markaasay xusuusanaya ilaahay weynidiisa iyo ciqaabkiisa ayay xusuusanaya faidaa hum masle isla markiiba kuwaa ilaahay ka cabsanaya mubsiruun kuwa wax arkaya weeye xaqii bay garanayaan way baraarugayaan xumaantii way ka joogayaan markaas wa ikhwaanuhum shayaadiintaas kuwii walaalahood ahaa yamudduuna waxay u kordhinayaan shayaadiintii hum kuwii walaalahood ahaayo insiga ahaa filgayi baadinimadii iyo macaasidii ayay ku sii wadayaano ay u sii siyaadinayaan uma dabadeedna laa yuqsiruun macaasidii ay ku jireen kuwa ka gaabinaya ama joojinaya ama ka haraya ama ka tegaya ma ah labadan aayadoodna ilaahay wuxuu inuu ku sheegayaa subxaanahu wa tacaala dadka labadiisa qaybood qayb waa qayb ilaahay ka cabsanaysa markii dembi ay ku fekeraan oo waxun qalbigooda uu ku soo dhaco isla markaba waxay xusuusanayaan allah weynidiisa iyo ciqaabkiisa adkaantiisa iyo dembigan waxa ka imaan kara markaasay baraarugayaan dembiga ay ka joogsanayaan oo ilaahay u noqonayaan subxaanahu wa tacaala dadkaasi waa in aladiina taqow kuwa ilaahay ka cabsaday wey amaa kuwaan ilaahay ka cabsan ilaahay wuxuu yidhi kuwaasi waa kuwa shayaadiinta la walaaloobay oo dembi markii qalbigooda uu ku soo dhaco ama dembi ay sameeyaanbaba iyagoo ilaahay ma xusuustaan shayaadiintaa dembigii ku sii wadayo u siyaadinaya dabeedna dembigii ka istaagi mayaane waa ku sii soconayaan dadku labadaa wey qof shaydaan duufsaday oo xumaan hadduu faro aan ka harayn iyo qof markii qalbigiisa wax ku soo dhacaan ka joogsanayo ilaahay xusuusanaya subxaanahu wa tacaala ina aladiina kuwa ittaqow cabsaday idaa massahum markuu taabto daa'ifun dayfunna waa la akhriya labada qiraba sabciyaad weeye macnaha waa waswaas cara waa la yidhi waswaas waa la yidhi
markii waxuun macnaha aan ilaahay raalli ka ahayn qalbigooda uu ku dhaco waswaaskaasoo ama dembigaasoo min ashayطaani shayطaan xaggiisa ka ahaaday tadakaruu ay tadakaru اllah alcadiim wa ciqaabah ilaahay bay xusuusanayaan iyo ciqaabkiisa faidaa hum isla markiiba mubsiruun kuwa xaqii arkaya weeye macnaha waa baraarugayaano dembigiibay ka joogsanayaan wa ikhwaanuhum shayaadiinta walaalahood ikhwaanka waxaa loola jeedaa waa dadkii xunxumaa humtuna waxay u noqonaysaa shayaadiintii wa ikhwaanuhum shayaadiinta kuwii la walaaloobay ilaa dad waxaa jira shayaadiinta la walaaloobay qofku haddii uu macaasida dembi ka dhigto isaga iyo shaydaanku waa walaalo oo dadka xoolaha ku ciyaaro oo kale ilaahay waatuu ku sheegay inay yihiin shayaadiinta walaalahood walaa tubadir tabdiira ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin wa kaana shayطaanu lirabbihi kafuura kuwa shayaadiinta la walaalka ah yamuduuna waxay u kordhiyaan shayaadiintu waawuljamaacahan shayaadiintii buu u noqonaya humna waxay u noqonaysaa ikhwaankii oo ikhwaanuhum kuwa shayaadiinta la walaalka ah mudaafkaas dadkii baa loo jeeda humna mudaaf ilayhigaasna shayaadiintii baa loo jeeda yamuduuna faacilkaas wowgaas waawuljamaacahay wuxuu u noqonayaa shayaadiintii hum kuwii isiga ahaayo shayaadiinta la walaalka ahaa waxay u kordhinayaan oy ku sii wadayaan ay ku socodsiinayaan fi lgayi baadinimadii dembigiibay usii qurxinayaan waa kusii taqantaqaynayaan waa kusii dhacayaan uma dabadeedna laa yuqsiruun dembigii ka joogsan mayaan oo ka hari mayaan oo ka gaabin mayaane meeshii bay ka sii wadayaan allah wuxuu yidhi waidaa lam ta'tihim haddaadan ula imaanin rasuulka ilaahayow kuwa gaalada ah biaayatin mucjizo haddaadan ula imaan qaaluu waxay odhanayaan lowla jtabaytaha ay halla jtabaytaha adigu maa dooratid haddii ilaahay mucjizo ku siin waayey adigu jeebkaaga maad kala soo baxay qul waxaad tidhahdaa rasuulka ilaahayow innamaa attabicu anigu waxaan raacayaa oo keli ah maakii yuuxaa la waxyooday ilaya aniga xaggayga min rabbii rabbigay xaggiisa la iga waxyooday ayaan raacay intaa ayaa anigu ku xira mucjizo lama imaan karo shaqaday ma aha waxa anigu aan ku xirahay aan raacayaa waa wixii rabbi xaggiisa iiga yimid oo keli ah haadaa kaas basaa'iru xujooyin weeye waa qur'aanka iyo aayaadkiisa basaa'iru xujooyin cadcad weeye haddaad ku cibro qaadanaysa oo min rabbikum rabbigan xaggiisa ka ahaaday wahudan hanuun weeye waraxmatu naxariis weeye liqowmin qolo ayaana qur'aanku hanuun iyo naxariis u yahay yu'minuun rumaynaya aayaddana ilaahay wuxuu kaga warramayaa nimankii mushrikiinta ahaa cinaadkooda iyo adaygooda xaqa ay diidayaan inuu gaaray inay nebiga ku yidhaahdaan calayhi salaatu wasalaam haddii ilaahay xaggiisa mucjiso lagaaga keeni waayo adigu samayso adigu jeebkaaga kala soo bax adigu cirka ka soo degso waxaan caqliga geli kar markaasaa nebiga waxaa lagu yidhi waxaa ku tidhaahdaa war anigu isma maamule ah ilaahay baa ii maamula subxaanahu wa tacaala waxaan raacayaa wixii la ii waxyooday qof kastoo ummadda nebiyullaahi maxamed ka midana waa inuu sidaa yidhaahda innamaa attabicu maa yuuxaa ilaa muxamadin min rabbihi bas waxaan raacayaa wixii ilaahay u waxyooday nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo kitaabka qur-aanka ah iyo xadiiska nebiga ah sala allahu calayhi wasalam waddo kaloo inoo furani ma jiro waidaa lam ta'tihim haddaadan ula imaan biaayatin mucjiza haddaadan ula imaan qaaluu waxay odhanayaan lowla jtabaytahaa adigu maa dooratid jeebkaaga maad kala timaadid qul waxaad tidhaahdaa innamaa attabicu war anigu waxaan raacayaa oo keliya anigu isma xukume ah waxaan raacaya maa yuuxaa kii la waxyoonayey ilaya aniga xaggayga min rabbii rabbigay xaggiisa layga waxyoonayey haadaa kaas basaa'iru xujooyin weeye haddaad ku qancaysaan qur'aanku xujooyin weeye iyo aayaad weeye mucjizaad weeye min rabbikum rabbigiin xaggiisa idinka timi wahudan hanuun weeye waraxmatu naxariis weeye liqowmin qolo ayuuse u yahay yu'minuuna rumaynaya waidaa quri'a marka la akhriyo alqur'aanu qur'aankii fastamicuu u dheg raariciya lahu qur'aanka wa ansituu aamusana oo insaadku waa qalbigii iyo dhegaysiga iyo aamuskaba in la isku daro lacallakum waxaad mudantihiin markaas
turxamuun in la idin naxariiste aayadaana ilaahay wuxuu ina ku faray haddii qur'aan agtaada lagu akhrinayo inaad dhegaysatid weliba aad u dheg raaricisid oo qur'aanku qalbigaaga uu u dhaco oo aad aamustid guud ahaan aayaddu macnahaas bay ka hadlaysa oo waxaynu ka qaadanayn qur'aanka haddii agtaada lagu akhriyo ama adigu aad dhegaysanaysid si fiican u dhegayso si fiican ugu dheg raarici qalbigaaga u fur fahan inaad fahantid isku day oo macnaha ka imaan mayso hadda qur'aan walba meel ka shidan inaad ku istaagtid oo idaacad baa soo daysay ama maxaan ku yiraahdaa ama mobilkaaga ka baxaya waa iska dabin ka markaad doontid laakiin markaad ku tala gashid si fiican quraankii u dhageyso waxba lagu akhrinaya qof baa quraankii ku baraya qof baa maxaan ku yiraahdaa raba dadku inay quraankii ka dhageystaan marka u dhig raare culimada qaarkood ama aayaadkan waxay ka qaateen waxa loo jeedaa bay yiraahdeen salaada marka salaada lagu jiro oo salaadu jahriya ay tahay imaamku codka uu kor qaadayo adigu waxba akhrina ha dhageyso kaliya waa mas'alo culimada isku khilaafsan yihiin oo imaam Ahmed iyo Abu Hanifa waxay ku tageen mar haddii qofku iimaan uu leeyahay oo iimaankiisu waliba salaada uu ku jira jahriya ay tahay shibdhe xataa faatixa laga marba yiraahdo dhageyso kaliya iyagoo aayadan daliishanaya iyo ahadiis kale inkastoo ahadiistaasi aysan sugnayn oo culimada badankooduba macnaha ay daciifiyeen halkii xadiis mooye oo nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam inama ju'ila imaam liyutamma bih oo marka ay kamid ahayd wayda qaraa fa ansitu haduu quraanka akhriyo dhageysta imaam shaafici rahimahullahu ta'ala iyo rakalo culimada waxay ku tageen faatixada iyada marna inaan laga tagay oo imaamku ama salaad jahriyaha ku jiro ama salaadu sirriya ha ahaatee mar walba qofka maamuumka ah faatixada waa laga rabaa iyagoo dilishanaya ahadiistii uu kamid ah hadiiskii la salaata liman lam yaqra bi faatihati alkitaabi sidaasana raajixa insha Allah oo imaamku markuu xoogaa aamuso markaad ka gaarsiin kadib mar walba faatixada akhriso laakiin quraan kale ha gelin faatixada hadaad akhrisid quraanka kale markaas dhageyso war kale ha gelin markaas وإذا قرأ مرك الله أخري القرآن قرآنك فاستمعوا دغيست الله قرآنك ودك رارعي وأنصتوا ودك رارعي معناها قلبكين إيه قاربكين قرآنك وجيدية لعلكم واحد ملنته ترحمون إلا إذن حريست وحيال يسقون حريستي كم إلى هذا كونا حريسته قرآنك إن سفي عن لو دغيست ولا فهمه واذكر حس ربك في نفسك نفتارك كحس adoo naftaada kaliya ilaahay xuskiisa maqashiinay tadarrucan ay mutadarrican xaal aad tahay mid ilaahay isu bihinaya oo ilaahay isu duleynaya wa khiifatan ay khaifan xaal aad tahay mid ilaahay ka cabsanaya subhanahu wa ta'ala oo markaad ilaahay xusaysid cabsida ilaahay qalbigaaga ay ku jiro wa duuna al-jahri la qaylinti sokadeeda min al-qawli xagga hadalka adigoo xuska ilaahayna aan la qaylinay ee naftaada kaliya maqashiinay bil quduwi arooriyalki rabbiga xus wal aasali iyo qalbihi wala takunha hanin min al ghafilin kuwa xugmoogayaalka ah ilaahay xuskiisa iyo dhikrigiisa hilmaansan oo qalbigoodaba aanu ku soo dhacayn Allah حكم النقني اسك إلى كواس إن الذين كوا عند ربك أكتي أهاضي وملائكتي لا يستكبرون اسكما وونيسيان عن عبادته الله عبادته اسكما وونيسيان ستوصي إلهي وعابدا شاكر ومله ويسبحونه الله أي نزهان أو أي هفان سبحان الله أي إلهي كعابدان إن بضا يجوا وحكسون لا يقوى هين إلهي كنزهي وله الله أيينا يسجدون وسجوديا إلهي سبحانه وتعالى آياتان هراء وحوينا كفريا إلهي حسكي سينا بدين آذاب تمرك ذكرك أيها سورة دان لقود ما يستن وحوي كو مركز إلهي حسيسي في نفسك نفط هذا عدك مغشي سبحان الله والحمد لله ولا إله واكس
naftaada un maqashi ha qaylinin oo cid kale codkaaga ha gaarsiin markaad ilaahay xusaysid waa inaad tahay mutadarric qof ilaahay isu bihinayo muujinaya inaad ilaahay u baahan tahay subxaanahu wa tacaala qofku mutadarric tadarruc waxa weeye qofku inuu ilaahay isu dulaynayo ilaahay isu bihinayo ilaahay inuu u baahan yahay muujinayo wa khiifatan iyaduna waa tilmaan kale waa bimacnaa khaa'ifan isagoo qofku ilaahay ka cabsanayo dhinacna ilaahay isu bihinayaa dhinaca kalena ilaahay ciqaabkiisa isagoo ka baqaya subxaanahu wa tacaala wa duuna aljahri min alqowli waa khufyadii mar kale la sii akiday ilan waa tii awal wadkur rabbaka fii nafsik markaad ilaahay xusaysid xagga qowlka hala jahrigii cod ka sokeeya oo hoose oo naftaada keliya ay maqlayso waa tii ilaahay ku ammaanay nabiyullaahi zakariya id naadaa rabbahu nidaa'an khafiya rabbigiis buu u yeertay oo baryo qarsoon marka haddii la ducaysanayo iyo haddii qofku ilaahay xusayo asalku waxaa weeye hoos in ilaahay loo baryo hoostaada inaad ilaahay u xustid adkaarta iyo ducooyinka meelaha la isfaray in codka kor loo qaada waa meelo yar adinka iyo khadiibka oo kale iyo markuu ducaynayo iyo waa meelo kooban laakiin inta qofku iska qaylo yidhahdo ilaahay baan xusaya ama ilaahay baan baryaya weliba hadda makarafoona lagu daro sax ma ah haddii qof loo ducaynayo haddii arrin timid maxaan ku idhaahdaaye iyadu waxba dhibaato ma leh salaadaha haddee markaynu qunuudda oo kale waa duco iyadoo sidoo kale iyaduna waa sugnaatay oo haddee waa lagu ducaysanaya meelahaas mooye qofku inuu dhaqan ka dhigto inuu ducada weli isaga markay u gaarta iyo adkaarta inuu qofku kor u qaado arrintaas bidca wey arrin la ogol yahay ma ah ajarna qofku ka heli mayo waataynu soo marnay min almuctadiin buuba ka mid noqonaya kuwa xadgudbay oo baryadiisa ilaahay aqbali maayo qofkaas waxaa kaloo ka mid a aadaabta xuska ilaahay labada waqti ay ugu fadli badan yihiin baa laynoo sheegay waa aroorta hore iyo galabti waa labada waqti oo waqtigu isbedelayo labadaa waqti aad ha loogu taxadaro oo salaada subax oo kale markaa tukatay waxaa fiican adkaaru subax walmasaa adoon akhrisan ha kicin waqtigii la yidhi ilaahay in badan xusa wey adkaartii waa la garanayaa waa inaad akhrisata subxaana allaahi wabixamdihi boqol jeer waa inaad tiraahda waa tii nebigu yidhi calayhi salatu wasalaam qofkii yidhaahda markuu waagu u baryo iyo markuu galabayso subxaana allaahi wabixamdihi dembigiisa ilaahay waa dhaafaa walow kaana midla zabadi lbaxr badda xoorkeedaba ha ahaada marka fursadahaasoo kale lama dayo sidoo kale galabtii markii casarka aad tukatid iyadana hadda casarkii baa soo galay waa aasaalkii ilaa bacda almaqrib ilaa gelinka dambe adkaartaada akhriso marna macnaha carabkaagu dikriga ilaahay intii kuu suurtagala yuusan dhaafino mar walba xuska ilaahay hay allah wuxuu yidhi ha ka mid noqon kuwa qaafiliinta ah qaafilka qofkan ilaahay xusay dad soo ma jiraan weligood afkooda xus ilaahay aadan ka maqlay waa qaafil qofkaas kuwaas ilaahay waa inuu ka digay subxaanahu wa tacaala suuradda ilaahay wuxuu ku khatimay boorin ilaahay inuu ku boorinayo ilaahay cibaadadiis inay joogta inoo noqoto oo ilaahay wuxuu inoo sheegay ilaahay agtiisa malaa'igta ah ilaahay cibaadadiis ma waaweynayaan macnaha ku dayda weeye ilaan waxa fiican waa lagu dayda sidoo kale walahu yasjuduun ilaahay bay mar walba u sujuudayaan macnaha mar walba cibaado ilaahay bay hayaan idinkuna iyaga la mid noqda aayaddaani waa aayadda ugu horeysay oo sajdada ama sujuudu tilaawa lagu jideeyey waa aayaddii ugu horeysay aayad hadda ka hor maynaan soo marin aayad marka la akhrinayo lagu sujuudo kowtanaa ka ah wadkur xus rabbaka rabbiga fii nafsika naftaada gudaheeda ku xus tadarucan xaalaatay mid ilaahay u tadarucaya wa khiifatan xaalaatay mid ilaahay ka cabsanaya wa duuna aljahri codka koruqaadkiisa ka sokow koruqaad la-aantiis oo min alqowli xagga qowlka adkaarta markaad ku hadlaysid codka kor ha ugu qaylin ee hoos u dhig bilquduwi arooryaalkii ilaahay xus wal aasaali iyo galabyaalkii waa gelin hore iyo gelin dambaba walaa takun ha ahaanin min alghaafiliin kuwa ilaahay xuskiisa hilmaansan ha ka mid noqon
ذكرك إلهي وأنا وحفظ وأنا وحاد وأجر بدن قف إنه إله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أدونك يوحيال ببائي ذاك خير بدن مركا قفك إلهي ووافجيه وحوين بإلهي وافجي meel kasta ay hadaad soconaysid hadaad gaarigaaga saaran tahay hadaad gurigaaga joogtid dhikriga ilaahay iska hay muxuu ku yeelay innal ladina kuwa inda rabbika rabbiga agtiisa ahaaday waa malaa'ikta la yastakbiruna iskama waaweynaysiyan an cibaadati ilaahay cibaadadiisa wayusabbihunahu allah ayay nazahan oo xumaan oo dhan ay ka hufaan macnaha subhanallah ayay ilaahay ku xusan wal haal lahu lillah ay yasjudun ay in badan u sujuudaan سورة الأنفال وسورة مدنية آيات كيدو وتضباطا يشن آيات سورة دان وحي سودكتي بدر غزوة بدر مركي دعضي كقضاء سيدا درادت جودهان وحي كهد ليسا غزوة داس يا أحكامتا يا وحي كسو أروري هي كهد ليسا سورة سورة البدر حتى أصحاب تقاك بدبا لقوري مقع عاصل إنه أبحيه سورة داينة سورة دي بدر بسم الله الرحمن الرحيم الله وحي يسألونك وحيك سؤال يا رسولك إلهي وحي وحكاوي دينيا عن الأنفال أي عن قسمة الأنفال غنيموينك سيد الله قيبين أيه قل وحات ترى رسولك إلهي الأنفال غنيموينك تلضوضا لله الله كليا إسكاله والرسول يا رسولك صلى الله عليه وسلم أيا أطلنيه فاتقوا الله كعبصدا واصلحوا هجاجيه ذات بينكم دحدينا وحي اهاده او دحدينا اي صاحبتهينا هجاجيه او كهشيه واطيعوا الله ورسوله الله ورسولك سنا اداع ان كنتم هداتهين ددو مؤمنين كو مؤمنين ايضا وحي سو دغتي markii qaniimadii badar asxaabtii nabiga radiyallahu ta'ala anhum ay isku khilaafeen oo ayaantii badar ay dhacday oo gaaladii la jibiyay xoolo badan baa gaaladii laga qabsaday asxaabtu marka saddex bay u qaybsameen qayb xoolihii bay ururiyeen oo ay ku mashquuleen qaybna gaaladii bay sii cayrisadeen oo ka daba tageen qaybna nabiga isku wareejiyeen kaleey salaatu wasalaam iyagoo ka cabsanaya nabiga in loo soo dhuunto hadda xoolihii markii la isugu yimid ayaa la mudnaa qoladii xoolaha ururis waxay xoolaha anaga soo ururinay oo gacanta ku dhignay ciidinana lama wadaagto qoladii gaalada ka daba tagtay waxay yiraahdeen war anagu gaaladii baan ka fogeynayn hadaan gaalada ka cayrin lahayn xoolaha haysan lahayn qoladii kalena waxay yiraahdeen war anagu nabigaan ku tusanay kaleey salaatu wasalaam hadaan nabiga la ilaalin lahayn hadii waa la jabi lahaa khilaafkaas yimid markaas ayaa ilaahay aayaadkan soo dejiyay qaniimada qaybinteeda allah iyo rasuulkiisa iska leh sallallahu alayhi wasallam وأوتي دون مرك آيات الوقيبي وعلم أن ما غنيتم من شيء فأنا لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين غنيمتي ولا غيبي شن ميلاد أو ميل واكاس نبي أطلنا عليه الصلاة والسلام أو إلهي هدي وعلى بركة سنة يا مجلس حولها إلهي بالسيل ورمي إلهي وغني نبي عليه الصلاة والسلام باقيب كويراني dadkii musaafiriinta ahaa ibn sabiilki waxaan leeyahay fuqaradii waa kaas dadkii qaraabada ahaa intii macnaha fa inna lillahi wa alam anna ma mushtafana lillahi khumusa wa lirrasul wa lidhil qurba wa qarabada nabiga kaleey salaatu wasalaam waa kaas dadkaas weey marka saasa ilaahay xukumay dabada nabigu saas u qaybiyay afartii meelood kale soo hadhayna waxa loo qaybiyay dadkii jihaadka iyagu ka qayb galay baa iska laha khumuska mooy afartii macna khumus oo kala soo hadhay aayada qaybteeda damana ilaahay wuxuu ina ku faray subhanahu wa ta'ala inaan ilaahay ka cabsano wixii dhexdeena yimaada oo khilaaf ahna in aan ka heshiino waajibkaas ilaahay ina faray allah iyo rasuulkiisa inaynu adeecano sallallahu alayhi wasallam إن كنتم مؤمنين هداد مؤمنين تهين صدح ذا شردي بقى الوحرة شردي كواد وحوي إن إلهي لقى عبصده سبحانه وتعالى شردي قال بعضنا هدي وحلا يسكو قبته ضدك مسلمين تاهي لحظة ذا إني كهشيان شردي صدح عادنا
الله رسول كيس إن لا أضيعه صلى الله عليه وسلم مركز أيام مؤمنين خالص أو طبعة لنغني صدق 11 دقف كي لجوايه إيمان كيس نقصان وين باكو جبله يسألونك وحكاوي دينية عن الأنفال حوله غنيمة قل وحات إلى رسولك إلهي الأنفال سيادة كلمة النفل بمعنى زيادة هو وصلاة النافلة فرد كبير زيادة كته وميلا بدن معناها كلمة داس يكون صار يدا معناها الزيادة ولد الولد زيادة لنبي الله يعقوب واتي نبي الله إبراهيم يقول من شكت إنه يهي نافلة إلى ويل كيس يبوها هاي sidoo kale xoolaha gaarada laga qabsado nafli badanaba waxa la yiraahdaa markii ciidan gaari ay hawlgal sameeyaan xoolaha wax gaar ah iyaga in laga siiyo ama khumus ama rubuc sidii nabigu yeeli jiray marka qaarkood kaleey salaatu wasalaam laakiin aayadan al-anfal waxa loo jeedaa qaniimadii oo dhan baa loo jeedaa qul waxa tira al-anfal xoolihi qaniimada ah lillahi allah bay u sugnaadeen macnaha taladood والرسول يا رسولك صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله كعب صدق وأصلحوا هجاجية ذات بينكم دحذين وحي صامرة ودحذين يصاحب تهينة هجاجية وكيشي واجب ويدك مسلمين توحسكو خلافان إنه كيشي لكن هشيس كم حاكه الرئية وحاكه الرئية فاتقوا الله قف إلهي كعب صرية بقى قفك كل مسلم كان له هشيني تقوذي يوم مقن بيونرانا إنه هشين dad aan fiirinayn warmadan maxaa u dana ilaahay muxuu raali ka yahay allah iyo rasuulkiisu maxay fareen maxaa xalaala maxaa xaaraana qof aan eegin heshiis gali maayo waa dhibaatada in haysata taqwadi baa maqan marka hadii ilaahay laga cabsan lahaa wax ishayn lahaa lama arki dhibaatada umada Soomaaliyeed sano haysata ashqaas yar kaliya ishaya xaqadu waa sidaas hadii qaadan lahayn fataqullah subhanahu baynakum umadu waa isku duba dhici lahay adduunkooda iyo aakhiradooda dad liibaanay noqon lahayn maxaa yeelay midnimada waa lagu liibaan waa tii nabiga kaleey salaatu xadiiska saxiixa ah ma idin sheega wax ka khayr badan soom badan iyo salaad badan oo sunna ah waxa way islaax daatil bayn dhixdiina inaad ka heshiisaan markaas nabiga ku daray kaleey salaatu wasalaam fasaad daatul bayn maxay tahay hiya alxaaliqa dadku haday iskhilaafaan waa xiirto buu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam mana aha waxay xiidaa timaha ah diintay xiidaa khilaafku xataa markuu yimaado dadkii xataa diintii baa ka baaba'aysa been baa la iska sheegaya wixii la doonaa la isu sameynaya la isu ceeb qarin mayo qof waliba qofka kale oo xamaanaya asaan hadda maqlay marka wax kale iska daayay khilaafku diin la'aan buu keenay adduun iyo aakhiraba waa lagu waayay ilaahay baan ka maangalay subhanahu wa ta'ala ilaahay umada qalbigeeda soo jeedi wa atii'u allaha wa rasuulahu allah iyo rasuulkiisana adeeco ka damay إن كنتم هداتهين مؤمنين ضد مؤمنين إنما المؤمنون مؤمنين الذين كوي إذا ذكر الله مركي لحصه وجلت أي عبسنيسي قلوبهم قلوب طول أي عبسني وقلب قول وقريري جرعوني وإذا تليت مرك الله وآخره عليهم كركوض آياته إلهي آيات كيس وقرآن كمرك القدر الآخرين زادتهم آياتي وحي أكردنيا إيمان بأكردنيا وعلى ربهم ربي قد كركي سنة يتوكلون كوا كوكالصون ذوي وربي قد تلذ وديبته أو كوكالصون الذين كوي ويمؤمنين يقيمون الصلاة صلاة دي أوغي وتوسنية ومما كي حقيس رزقناهم أنكو أرزقنينه ينفقون وحكب بحنية أولئك كواس هم إيجا أمبا المؤمنون مؤمنين تي حقا أو طبعا مؤمنين خالص أو طبعا كواوي لهم وحيليه درجات درجوين جنة بإليه منازل جنة أي كليه عند ربهم ربي قد أكتيس ومغفرة دمداف بإليه ورزق أي رزق كريم ونعكسنا الشرف بضا وجنة ذي آيات كصدح ذانا إلهي وحينا كشيء يا سبحانه وتعالى مؤمنين هذا لقى صور وإلهي يري إن كنتم مؤمنين هداد مؤمنين تهين شانس فوق كلا ومؤمنين تلقوا يقان وإنتي هراء زيادة كسية أول وحال صور شيء تقوذي وحال صور شيء إن له الشيء ودتك لحظة يكيه الشيء وحال صور شيء الله يا رسول كيسا
إن لا أطيعه لقدمي صلى الله عليه وسلم شانس فوق لا إله إلا شيء إنما وأداة الحصر معناها ذاتك مؤمنين صفات كو مؤمنين تدبطه وأكو صفات كان لقى هلي قفكي لقى وايي مؤمن دبعه معه كو waxa weeye marka ilaahay lagu wacdiyo qalbigooda ayaa cabsanaya wajilad wajilku waxa weeye qofka marka ilaahay lagu waaniyo dambigan iska daal ilaahdo wanaagan samay inuu qalbiga ka dareemayo macsidu qalbigiisa inay dhibayso inuu ka xun yahay qofka weeye marka ilaahay lagu waaniyo oo la wacdiyo qalbigoodu waa lulanaya waa cabsanaya sifada labaad waxa weeye quraanka marka lagu dul akhriyo iimaan ba u ziyaaday waxa aydan daliil u tahay anna al-iimaan yaziidu wa yanqus wa asna ahlu sunna wal jamaa ay qabaan iimaanku waa kordhaa waa nuqsaama oo daacadka ilaahay buu ku kordhaa macaasidana waa ku nusqaama sifada labaad marka taaway hadii ilaahay quraankiisa lagu dul akhriyo aayaad xataa kowniga waa soo galaya cirki baa looga sheekeeyay makhluuqaadka ilaahay abuuray oo ilaahay aadkiisa looga sheekeeyay markaas iimaan u ziyaaday waana sidaas maalin walba hadda la yiraahdo gaaladuba ha keeneen waxba la ogaaday aayah min aayaati illaah xidigaha qaarkood baa laga ogaaday dhulka laga ogaaday badda laga ogaaday qof muuminka iimaan baa u ziyaaday ilaahay subhanahu wa ta'ala abuurtiisa iyo awoodiisa sifada saddexaad waxa weeye rabbigood bay ku kalsoon yihiin waa sifo muhiim ah qofku inuu ilaahay ku kalsoon yahay wax kasta oo ku dhaca inuu og yahay ilaahay inuu u keenay wixii dhaafa ilaahay baa dhaafiyay lur iyo nafac ilaahay baa iska leh sifada afraad waxa weeye yuqiimuuna as-salaah salaadii bay oogayaan oo ilaalinayaan salaada waxa gaar loogu sheegay cibaadaadka badaniga ah oo badanka laga sameeyo cibaadada ugu fadliga badan weeye markaas waxa lagu xijiyay cibaadada xagga maalka laga sameeyay oo ahaa zakadii iyo sadaqadii wixii ilaahay siiyay kuwa wax ka bixinaya way labadaas ma kala haraan waxa aragsa diinta islaamku diin ku eg ma aha qofka iyo cibaadada ilaahay ka dhaxaysa bes waa inuu yahay qofku qof dadkan anfacaya salaadii baa la sheegay oo ahaa qofka xiriirka uu ku hagaajinayay isaga iyo Allah markaas waxa lagu xijiyay wixii ilaahay siiyay waxbay ka bixinaya macnaha dadkii bay wax tarayaan way الله وحي مركز كجدال آية الدم أولئك كواسا وحيه مؤمنين حقا وربطة مؤمنين دوا مربطة كواسوي عربتو يدو دتكو أي وذو وناكسينهين حقا قفك راعيان وقفدتك كلا كسرية ووحي رادان هبل وعالم حقه وعالم دبه علماء كلا وكفي عين وتاجر دبع سيدنا ونراهno dad badan oo tujaraa baa jira laakiin ninkaas waa nin dadkii wax la dheer waa sayid dabah dad badan oo asiyaada jira madax ah laakiin ninka madaxtinimadiisu madaxnimo qiimo leh way marka humul mu'minuuna haqqan waxay kordhinaysa dad badan oo mu'miniina jira laakiin dadku waa kala sareeyaano kuwa mu'miniinta dhabta ah sifaadka kuwa laga helay way markaas kadibna abaalkoodii baa ilaahay inuu ku bishaareeyay ilaahay agtiisa inay ku leeyihiin darajooyin janno iyo dami dhaaf iyo risqi kariim martii quraanka ilaahay uu ku sheego risqa jannada loo jeedo jannadii bay sidee doonaan ugu raaxaysanayaan way innamal mu'minuuna kuwa mu'miniinta ah waxa weeye oo kali ah alladina kuwa idaa dhukira Allah marka la xuso oo ilaahay la xusuusiyo oo agtooda ilaahay lagu xuso wajilad waxa lulanaysa waxa cabsanaysa quluubuhum quluubtooda cabsi baa gelaysa waa bishaar markii dambi qalbiga uu ku soo dhaco hadaad ka baqdid qalbigaaga iimaan baa ku jira qofka xun iyo qofka munaafiqa ah haduu dambiga ku dhaco hadii kale ma kala jecla وإذا تليت مركا لغو دول أخريو عليهم كركوضا آياتكيس مركا لغو دول أخريو أما كوا وحيقا هذا أو قرآنك أما كوا كونيقا هذا مركا لغا ورمو زادتهم آيات كاس وحي أكردينيا إيمانا إيمان بأزيادينيا وعلى ربهم ربي قد كركيسنا يتوكلون كوا ترسار سنة يوي وربي قد كالصون وادركت عبادة عن توكل لهين
cibaado ma ah quraanka in badan baa ilaahay israaciyay iyyaka na'budu wa iyyaka nastaciin faatiha walba in ku tukanayno iyyaka na'budu wa cibaadati wa iyyaka nastaciinna wa tawakkulki fa'budhu wa tawakkal alayhi ilaahay aabud kuna kalsoonow qofka haduu ilaahay waa caabudaya laakiin kuma kalsooni oo talada u dhiiban mayo cibaadada waxa kama jiraan cibaadada nuxurkeeda iyo dhuuxeedu waa tawakkulka qofka ilaahay uu caabudayo inuu ku kalsoon yahay subhanahu wa ta'ala alladheena kuwa way yuqiimuna oogaya as-salata salaadi bay tuusinayaan si sax ay u tukanayaan wa mimma razaqnaahum wixii aanu ku arzuqnay xaqiisana yunfiquun kuwa wax ka bixinaya wixii oo dhan bay bixinayaan lama oran mintaan waa tabciiliya qayb kamid ay bixinayaan ama zakadii ha ahaato ama sadaqadii ha ahaato ulaa'ika kuwa sifaadkaas leh hum iyaga umba almu'minuuna mu'miniintii haqqan oo dhabta mu'miniin khaalis oo dhab daarti inaad ogaatid sifaadka kuwa leeyahay lahum waxay leeyihiin darajaatun darajooyin sare ayay ku leeyihiin waa darajooyinkii jannada cinda rabbihim rabbigood agtiisa wa maghfiratun dimdaaf bay leeyihiin oo ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin wa rizqun iyo rizq kariim oo wanaagsan hadii darajaadkii guriyihii fiicnaa la sheegay noloshii fiicnayna waata jannadana rizq wanaagsan oo kale ayay ku leeyihiin ilaahay ana kamid yeelo subhanahu wa ta'ala وبالله التوفيق صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين